ururka gaadiidleyda waaweyn ee Tawfiiq ayaa maanta xariga ka jaray dhismo xafiis cusub oo ay ka dhisteen magaalada Berbera. munaasabad ballaaran oo ay u sameeyeen xarig ka jaridda xafiiskoodan isla markaana ay ugu mahadnaqayeen cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha xafiiskoodan ayaa waxay saaka ka dhacday xafiiska ururka gaadiidleyda waaweyn ee Tawfiiq, iyagoona ka waramay baahida ay u qabeen xafiis uu yeesho ururka gaadiidleyda waaweyn ee Tawfiiq iyo ahmiyadda uu leeyahay ururka, iyagoona sheegay inuu xafiiskani u hirgeliyay maareeyaha dekedda caalamiga ee Berbera Port injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xorxor, iyagoona si weyn ugu mahadnaqay. ilaahay baa mahad leh. xafiiskan quruxda badan ee qalabaysan ee nidaamsan ee hagaagsan waxaa noo dhisay injineer Cali Xorxor iyo aargadan iyo intanilkan si fiican u noo shaqeeya wada shaqeyn wanaagsanna way naga dhaxaysaana wada shaqeynna Ilaahay ka dhigo. waxa weeyaan ilaahay baa mahad leh, waanu mahad celinaynaa boqolkiiba boqol. anigoo ah gudoomiyaha gaadiidka ururka iskaashatada Tawfiiq. halkan waxaanu u mahadnaqaynaa maareeyaha dekedda Cali Xorxor oo noo dhisay xafiiska kan iyo waxaan ku raadayay farxadda tan aanu deganahayba, marka isagaan wada shaqeyn leenahay. xafiiska sharafta leh waxaa noo dhisay maareeyaha dekedda Cali Xorxor. madaxna la shaqaysana 20 sanadoodna wasagu baanu aragnay. ilaahay baa mahad leh oo mahadnaqay. imika gudheeda aad baan u yara dulmana waxaan doonayaa in nala shaqeeyo wax loo qabto. mahad celinayna maamulka dekedda ee uu ka yahay Mr. Cali Xorxor, maareeyaha oo noo dhisay xafiiskan farxadan ballaaran ee bannaan ee dhulka ah loo soo wareejiyay iyadoo lagu tuulay meel abtaqalaho xabaali hore ah. Khalid Xasan Nuur, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV, Berbera.